عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضى شرفت له كسر وهذا حرفة كاب كوليدج. أنت كده إن شاء الله ويجري أبيض محرف عن كسر دوي حرفة كاب كوليدج كوليدج عالمي وقفكو ميل والبعدون كتشوجو وحكا صبران كرو runtiina uu diyaarin karo department ala la tuu doonayo marka muuqaalkan kooban runtii waxa lagu talagalay in ardayga cusub ee isdiiwaan geliya uu u noqdo orientation sida uu boorta ku isticmaali lahaa sida uu casharada isugu diiwaan gelin lahaa iyo waxyaabaha la xiriira sida dareemaysid markaad isdiiwaan gelisid ama xirmo isku diiwaan gelisid waxa weeye waxa ku fududaanaya inaad koorso ka soo adshahay aad iska dhigatid oo koorso gaar ah kama xadidna qofkana chance baa la siiyo muddadaas chance-ka aad haysatid ayaad maartay ka faa'iideysanaysaa systemkaada halkii oo koorso kasta lacag laga qaadi lahaa koorso kasta $50 ama $20 ama $30 laga qaadi lahaa wax kooban ayaad hal mar ardaygu bixiyay waxaas ayaa marka wax u fududeynaysaa ardaygii maxay in saarahan uu maartay any course uu jecel yahay uu dhigto maartay takhasus dhan uu jeclaa uu dhameystirto marka horta inaad fahanto takhasusiyada baa muhiim ah intaan website gelin website horta halkaan hadaan soo tagno waxaan ku qoraynaa maxay xirfadkaab.com markaas aad qortid website-kan saas uu soo baxaya waa aragtaa halkaan fulkaas ku saaran halkaan ugu sarreeysan waxa aragtaa category-yadii marka hadaan meel cidlays ama meeyada la firkada ku dhufto category-yadii ayaa ku saaran category-ga design-ka ah category-ga maxaa hal mar ku dhufto category-ga business and business and design waxa ku jira waxyaabaha online business-ka ah looga shaqeysto ayaa ku jira koorsooyin ah sax faantay ma computer application waxa ku jira asaasiga computerka waa meesha laga bilaabo hadda computer hadda core diploma ka qaadan diploma-kaada koobaad waa inay noqoto computer application marka halkaan mid walba waa diploma kan waa diploma 2 3 4 5 6 7 8 diploma ayaa hadda xirfad kaab college ugu jirta marka takhasus kasta sharaxan computer application waxa ku jira hadaa dhamaysid waxa helaysaa maxay diploma computer application ayaa helaysaa soo fahmin diploma computer application hadaa cyber security waxa ku jira oo dhan dhamaysid imtixaan baan dhow ka qaadanaa markaad soo diyaar garowdid waxaad helaysaa maxay diploma cyber security marka waxa rajeenayaa halkaas aynu si wanaagsan aynu isula fahnay waayaan inta hadaba hadaynu ka tagno hadda salahan aan ku dhufto computer application maxaa ku jira jaagan siiyo computer application ko waxyaabo badan ku jira waxa ku jira Camtia maaragtay Blasti master class-ka Excel-ki fundamentals marka inta badan hadaad bilow tahay waxa laga bilaabaa computer fundamentals kadibna waxa lagu xijiyaa Windows Essential-ka kadib Word-ka kadib Excel-ka PowerPoint-ga kana lagu xijiyaa saas loo wada arbaash marka saas faham marka waxa soo koobsa meesha qofku uu min $30 min $20 shanayn waxaas uu ka bixin lahaa waxa weeye xirmada ay isku diiwaan gelisay waa waxaan oo dhan ku fududeynaysa inaad iska dhigatid any course marka hadaad computer application-ka already professional ku tahay oo ku fadhido oo macluumaadkiyada ay plus taqaanid waxaad u gudbi kartaa takhasus kale aad doonaysid maybe cyber security barta amaan karta inaad baratid maybe database barta maybe language karta oo ilaa 6 level ka kooban marka dhameysatid waxaad heli doontaa iyadana diploma-ka marka soo maartid level-ladii all right maybe network engineer barta oo 3 level ka kooban wax weeye waa digan kartaa adiga takhasus kasto aad dhamaysid marka dhamaysid waxa helaysaa koorsooyinkan marka dhigato waxa helaysaa diplomadaada sax faantay ma sidoo kale ardaygu hadduu dhigto hal tababar oo uu doonayo sarahan network-ga waxa dhigatay maybe dalkan kale ku jirnaa waxaanu ku jirnaa cyber security kale ku jirnaa waxaaba dhigatay tan kaliya cyber fundamentals baa dhigatay kaliya taa kaliya hadaa dhigato inta shahaado laga siiyo iyadana waa awoodnaa in shahaado aan ku siina laakiin shahaadada certificate ba noqonaysa diploma noqonaysa laakiin hadaa isku dhigatid waxaan ku siinaynaa diploma cyber security marka waxyaabaha muhiimka oo tahay inaad fahanto xirfad kaab college ma ahan college aad ugu imaanaysid macnaheedu sida jaamacadii oo kale inaad wax uga baratid ama wax la mid ah ma aha qaabka meesha u imaanaysid waxa weeye qaab ah inaad takhasus rabtid macnaha takhasus very specific wax maanta inta baratid subaxda ku xigta aad xoogaa
bariiska iyo kusoo dhacsan kartid ama kuu furi karta inaad maxaa yiraahdaa wax kale oo takhasus ah sii diyaarisid marka waxa qofku si fiican basic uga dhisan yahay waxa u fudud inuu takhasusku u jecel yahay uu dhigto marka waxaan rajeynayaa inaynu si fiican aynu isla fahnay inta markaynu ka tagno xirfadkaab ku soo noqono webkeena waa kan saan u diyaarsan yahay halkaas laga galaa ardayga hore user u lahaa ardayga aan lahayna sign up u dhahaya marka way fududahay waxa kale oo halkan waxyaabo ku jira xirmooyinka ku jira xirmooyinka bay adjustment aan ku sameeynay waxa weeye marka waanu kala badbedelnay marka tan waa 4 bilood le 25ka waa 4 bilood le ina soo faantay tan waa 4 bilood baa laga dhigay waa la badiyay sanadlaha marka faa'iidooyin badan ay leeyihiin marka hadda kuwaas 10 kale sharaxaad ah baa jira oo lagu sharaxayo iyaga marka hadda muhiimada waxaan soconaa waa arday already isdiiwaan galiyay marka sign up baa ku dhufanaysa sign up salahan waa arday cusub laakiin arday kale wuxuu dhahayaa login ayuu dhahayaa marka ardayga cusub halkaas wuxuu gashanayaa emailkiisii iyo passwordka emailka iyo passwordka waa kan ku soo dirnay adigu hadda isdiiwaan gelisay email iyo passwordkaadi waad ku gelisay laakiin waa inuu yahay midkii lagu xaqiijiyay ugu yaraan halka ardayga cusubna halkaan register ka dhahaa sawirka waraa garatay marka madaxaas halkaas waxa xadho madax halka isu bedelaysa hadaba marka haddaan nada iska soo dejino haddaan iska soo yara dejino oo imaano ardaygan oo galay already ardaygan hadda uu galay markii ugu horeysay uu galay userkiisa passwordkiisa ku galay macnaha waa ku soo tusay soo meesha userkiisa password sida loo gelinayo login baa lagu dhufanaya userkaadi halkaas aad gelinaysaa duguf@gmail.com iyo passwordka inta badan xarafkooda uu weyn yahay wuxuu weyn ma fahant kadibna passwordka gelis kadibna login baa tiri login markaa dhahdid halkaan ku keenaya halkaan markuu keeno salaahada qofkaan oo kale waa kan waxa weeye marka qofku wuxuu ku dhufanayaa madaxa yarka oo isbedelaysa meeshii login iyo sign up ku qornayd madaxaanay noqonaysaa way isbedeshay soo maaratid madaxaasay noqotay marka halkaas soo check soo siinaysaa waxaad ku dhufanaysaa enrolled course marka hadda aragtid wax course ah ardaygan uma enroll gareysna wax course ah ardaygan uma enroll gareysna marka waxaan isku dayaynaa inaan maxay aan course-da ugu enroll gareyn marka ardayga waxaan isku dayaynaa maxay inaan maartay course-da insha Allah aynu ugu enroll gareyno marka membershipka ardayga horta waa in la soo ansixiyo koowaad marka ardayga koowaad wuxuu ku dhufo members buu ku dhufanayaa members markuu ku dhufto hadda xirmadaas 4 bilood laha waa ardaygaas ugu jirta marka waa saasay ugu dhantahay waaye marka ardayga hadda halkan enrolled course ugu ma jirto meeshaas waa meesha koorsooyinka ay ku soo galayaan salaahada xirfadkaab ku noqo weeye aan ku dhufatay enrolled courses baa ku dhufatay madaxaada ku dhufatay enrolled course baa ku dhufatay halkaas koorsooyinka isu diiwaan gelisay ku soo galay marka hadda koorso dhan kugu ma jirto sababtiisan kugu jirin maxay tahay sababta xirma ku samaysan koorsooyinka waxa xadidna badaal rabaa inaad iska shaqeysid marka see samaynaysaa marka xirfadkaab waxa ku dhufo aad marka ku dhufatid salahan soo raac waxa soo raacda halkan oo kale imow computer application imow salahan course isu diiwaan gelinaysa tan oo kale IT fundamentals oo kale maybe tan isu diiwaan gelinaysa maybe review battery marka adiga gad ma dhahaysid ma fahant adiga tan ku dhufanaysaa enroll with membership adiga waa diiwaan gashatay already any course artin isu diiwaan gelisid enroll with membership ku dhufanaysaa marka sidaas aad maartay isu diiwaan gelinaysaa waa saas way marka ardaygan hadda membershipkiisa wax la aan la approve gareyn laakiin hadda waa la approve gareeyay marka refresh aan mar u dhaho ardayga refresh hadii loo approve gareeyay membershipkiisa waa shirkadu waa dhanta marka enroll with membership just any course dooro enroll with membership hada salahadan ku soo caliyo course-dana joogtaa halkaana joogtaa computer application ba joogtaa waxa weeye fundamentals ku doortay and then enroll with membership
check marka waxa aragtaa enrollment-gaadii 30 course-aad haysatay xabad kamid ah cunta ma garatay enroll with member baa leedahay jarrag waxa weeye koorsada waa ka start course aad dhihi kartaa casharada toos u daawanaysa start course aad ku dhufatid saas oo ku daawan kartaa casharadaadii automatically waa ka videogi horaad ka balay gareynaysa alright horaad ka balay gareynaysa videogi assalaamu calaykum full screen aad dhihi kartaa ka soo noqon kartaa halka waa chapter day waasho ina faantid halka waa chapter welcome to the diploma waa chapter soo xir halkaay chapter kala halkaas kaaga bilaabanaya waa casharadin waa kuwan course jira halkan waa section kii halkan waa casharada course jira waa casharadii halkan waa section course jira casharadii halkan waa section course jira saas ay kugu diyaarsanta programka marka program qaab professional runtii u diyaarsan marka waxa la rabaa inaad ardaygu u samaysto jadwal wax ku barto tusaale ahaan 4 maalmood baa chance leedahay ama 3 baa chance leedahay ama 2 baa chance leedahay maybe doorka waa chance leedahay wixii waa inaad warqad iyo qalin soo qoratid oo marka talooyinka ugu fiican waxa weeye kow inaad jadwal samaysatid jadwal sax faantay maadaama jadwal samaysan oo maalba waqti kale iska soo kacdid lugooyo kugu noqonaysa jadwal marka samayso jadwalku waxa weeye casharada marka inaad daawatid rehearsal samaysid oo ku calisid macallinku wuxuu ku leeyahay inaad marmar dhahdid oo kale kor u dhahdid practice inaad wixii samaysid oo practical ahaan u la samaysid haduu yahay English iyo haduu yahay computer kaba inaad practice ka macallinku su'aasha ku weydiiyo ka jawaabtid waxa uu ku dhaho dhahdid ka shaqaysid laabka la samaysid computerka la soo qaadatid wixii aad maartay aad ku xirnaatid markaad dhamaysid diplomada wixii ku jiray meesha markaad dhamaysid inaad dhahdid na soo cusubtid examka laga qaado lacagta diplomadii maartay lagu process gareeyo ama shahaadada diplomada lagu process gareeyo examka laga qaado hadaa certificate dhamaysidna in maartay markaas lagu sameeyo iyadana saasoo kale exam yar oo kooban oo koorsadaas aad dhigatay ah kadibna shahaadada lagu sameeyo labadaba ma aragtay marka labadaas qodob aday ka imaanayaan wax aan ognahay maaha moogta koorsada markaad dhamaysay ma ogaan macnaha hadana ku soo wicmayno directly hadaad dhamaysid diploma kana anoo kuma soo wici karno laakiin adaa rabaa inaad aqliyan fikirtid diplomka markaad dhamaysay aad dhahdid macallin waa dhamaysanay aad marka xirfadka soo wacdid marka saas way halkan waa contentska iyo dhan waa xiri kartaa content iyo dhan halkan ka xiri kartaa 3 4 ayriga ku dhufatid chat way format ka hadda wax ku dhufanaynaa xirfadka baan ku dhufanaynaa saako kale hadda markaas dib u soo gashid website-ka oo hal mar soo gashid oo sida caadiga ahayd aad maxay user-kaada iyo password-kaada ku soo gashid oo login dhahdid halkan aad imaanaysaa soo ma halkan markaad timaadid waa kan check enrolled courses baa ku dhufanaysaa madaxaada ku dhufanaysaa enrolled course baa ku dhufanaysaa marka koorsada ku jirtay waa ta saasaad koorsadan ugu enroll gareysanta marka sidaas ayaa xirfadka college loo dhigtaa any course oo jeceshahay oo kalena waad isu diiwaan gelin kartaa any course oo jeceshahay oo kale waad isu diiwaan gelin kartaa easy koorsada un baad tagaysaa maybe maanta wax ka rabtaa cyber security oo wax ka doonaysaa waxa weeye waa kan fundamental of cyber security check dooro kadibna waxa weeye enroll with membership leh kadib waxa weeye waa kan 29 waa ka yaraan doontaa baa lagu yiri hadaad isu diiwaan gelisid saas isu diiwaan gelinaysaa dhag waxa weeye way dhan tahay sheekadiiba oo koorsada start course hore kaga dhufanaysaa koorsada ku jirta xirfadka baad ku soo noqodo oo madaxaad yarka ku dhufatid oo enrolled courses ku dhufatid waxaad arkaysaa maxay koorsadaadii cyber security ay kugu jirto meesha tii kalena meesha ay kugu jirto ayaad arkaysaa waxaan rajaynayaa inaan si fiican aynu isla fahanno xirfadka college iyo systemka iyo qaabka wax loo baranayo iyo systemku marka waa self maarta waa system self based ah adiga iyo dadaalkaada iyo inaad maarta waxaad aad ka faa'iideysatid ayaa laga doonayaa mudadaas xirmada aad maarta ay ku diiwaan gashan tahay marka insha Allah guul fara badan ayaan idin rajaynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh